Yusra ninkeeda waxaan aqsanayaa subaxii dambe ka tegay ilaa habeenkii uu ku soo laabtay isaga oo wata gabar kale. Xilligaas Yusra way aamini weyse waxay indhaheeda ku arkayso, laakiin waxay ogaatay markaan arrintu inay faraha ka baxday. Ninkii ayaana xilligaas ku yidhi aniga buuq badan ma doonayo, isagoo gabadhii usii kaxaystay dhankaasi qolka jiifka. Soo dhawaada saaxiibayaal, oo walaalkiina barqada maanta inay wada qisaad u xanuun badan, taasoo aan rajeynayo inaa cashiro badan aad ka faa'iidi doontiin. Ka horse intaana bilaabin naga hubi inaad muuqaalkan like saarto, channelka hadaad ku cusubtaana subscribe ta naga hilmaamin. Aan hadda gudaha u galno. bilowga sheekadeenna waxa ay ku bilaabanaysaa gabar daayarkaasoo lagu magacaabay Yusra ruutinkeedu wuxuu ahaa wax walba inay soo toostacdaysato sidaasoo kalena salaadeed ay dukato. arrinkanna waxay wadeen muddo 2 sana ka hor markii iskuulka ay ka qalin jabisay. hortiisa iskuulka dhammaysay aabaheeda kaasoo lagu magacaabayay xaaji maxamedna ma uusan doonayn inuu gabadhiisa jaamacad u diro iyadana markay isku dayda inay dhanka hooye ka soo marto. waxayba ogaanaysa hooyada laftarkeeda inay aaba ka cabsanayso, halka walaalkeeda iyada loo diray dhankaasi Maraykanka si uu wax uga soo barto. tan kaloo Yusra usii dheereed waxay ahayd inuu aabaheeda iyada uusan u ogolayn inay badhaanka hadda asxaabteedana ay la soo kulanto, sidaasoo kalena saaxiibadooda ay guriga ku soo booqdaan iyadoo lagu yidhi waa inaad gurigaan joogta aadna ka bixin. marar badan ayay isku dayday gabadhan Yusra inay aabaheeda ku qancisa inuu jaamacadda u ogolaado, laakiin aabbaha waa uu ka diiday. sababta ugu diidanaya waxay ahayd in gabadhiisa magac uma ay u soo jiido. waxauna yidhi hadal waa hadalkayga oran lagama yaabo jaamacad inaan ku ogolaado. intaasi ka dambeeyay iyada waxay go'aansatay guriga inay iska joogto, marna TV-ga iska daawato. mararka ay TV-ga ku soo cajistana way imaan jirtay gabadha shaqaalaha, iyadoo xilligaasi ka caawinaysay sida cuntada ay u karinaysay weli waxyaabaha kale ay u baahan tahay. sidaasoo kale guriga bannaanka hore waxaa jooga nin lagu magacaabi jiray Ibraahim, kaasoo ah waardiyey guriga ay ku nooshahay gabadhani. si kastaba ha ahaatee muddooyinka sidaas ayuu ku socday. maalin maalmaha ka mid a sida caadadeeda gabadhii Yusra iyadoo TV-ga iska daawanaysa ayaa albaabka lasoo garaacay. isla markiina dhankaasi albaabka iyo soo orday. goortaysa albaabkii furta waxay aragtay inuu halkan nin lagu magacaabay xaaji Cabdullaahi iyo weliba xaaskiisa. xaaji Cabdullaahi ayaana gabadhii ku yidhi assalaamu calaykum gabadhaydii. iyadana waxay tiri wacalaykum salaam adeer soo dhowow oo fadlan gudaha soo gala. iyagana waa ay ka aqbaleen, isla markiina gudaha ayay soo galeen. caafimaadkeena ayayna weydiiyeen, iyadana waxay u sheegtay inay fiican tahay. kadibna waxay dheen naga waran famliga. iyadana waxay tiri hadda safar ayay u baxeen, laakiin mar aan kala hadla waxay ii sheegeen inay fiican yihiin. isla markiina waxay tiri bal wax yar ii suga si aan bal cabitaani kuu keeno. xaaji Cabdullaahi iyo weliba xaaskiisa arrinkaas aad bay ugu farxeen. iyadana dhankaasi jikada ayay isla markiiba u oraday. goortaysa jikadii sidaas u soo beeshay waxyaabo yaryar oo macaan ayay u diyaarisay. kadibna way u soo dhigtay goortii cuntadii ay cuneenna. xaaji Cabdullaahi ayaa hadla waxauna yidhi gabadhaydii waxaan u malaynayaa inuu aabbaha kuu sheegay guurka adiga iyo wiilkayga. gabadhii oo soo booda ayaa tiri sidee laakiin guur nooce ayaa ka hadlaysin. kadibna aabbi ayaa waxa uu yidhi adiga aabbaha iyo weliba aniga waxaan ku heshiinay inaan wiilkayga yarka ee Mascuud aan kugu daro. Yusra xilligaasi yaabaneed adagiina hadalka uu sii wata waxa uu yidhi markay caawa guriga ku soo laabtaan arrinkaasi waa ay kuu sheegi doonaan. weliba xilligaasi xaaji Cabdullaahi wuu dhul cadeynayay. Yusra hadalka ayaaba ku dhigay, hadalkiina waa uu ka safiiq waayay, iyadana lama ay sii murmin sababtoo dadkani waa ay xushmaynaysay. kadibna waxay ku dhaheen gabadheedii wax walba way wanaagsanaa doonaan, haddana waxaan doonaynaa inaan iska sii baxno. Yusrana waxay ku tiri okay nin male soo dhawaada. goortaysa bixin ayay qolkeeda ku laabatay, waxayna bilowday inay halkaas sagayso. dhanka kale waalidiinteeda waxay ka soo laabteen dhankaasi arrimihii ay u baxeen. goortaysa saas guriga ugu soo laabteen ayay gabadhii waxay ku dhaheen gabadhaydii waran. iyadana waxay u sheegtay inay fiican tahay, iyagana waxay weydiisay sida uu safarkooda ahay. waxayna u sheegeen inay fiican yihiin, alaabo badan ayayna u soo iibiyeen. kadibna maamadii ayaa waxay tiri gabadhaydii waxaan doonayaa arrin farxad leh inaan kuu sheego. ka horse intaysan maamadii hadalkii dhammaystirin ayaa gabadhii ka soo dhex gashay. waxayna tiri ma waxaad ka hadlaysaa yimaan guurka aniga iyo weliba wiilka lagu magacaabo Mascuud. maamadii ayaa waxay tiri sidee ku waata gabadhaydii. kadibna waxay tiri meeshan waxaa yimid xaaji Cabdullaahi iyo weliba xaaskiisa, iyaga ayaana arrinkaas ii sheegay. maamadii hadalkii dabta ayaana tiri haa gabadhaydii arrinkaas sidaas waaye, tan kala dharkaadi arooska duba ayaan kaaga dalbay. gabadhuna wuu tilmaanayaa. daqiiqada kadib albaabka ayaa lasoo garaacay, wuxuuna noqday ninkii dharkii waday. kadibna maamadii ayaa dhanka siblaaka u orda dharkiina ka soo qaaday, weliba iyadoo xilligaasi farxaddeeda la qiyaasi karin. dhan kale xaaji Cabdullaahi qolka fadhiga ayuu fadhiyey, gabadhiis ayuuna u yeeray. wuxuuna ku yidhi gabadhaydii imaaw. isla markiina iyada way soo orday waynu timid. kadibna waxay tiri haa ab macaan. wuxuuna ku yidhi gabadhaydii waxaan u malaynayaa wax walba hooyadeen ay ku sheegtay weliba guurka. Yusra ayaana isla markii waxa ay ku tiri haa ab macaan, wax walba way ii sheegtay. kadibna waxa uu yidhi ama hadda wax dhibaato ay jiraan dhankaasi weliba guurka. iyadana waxay tiri maya ab macaan, wax walba way wanaagsan yihiin. kadibna wuxuu yidhi waa arrin wanaagsan. haddaba hooyada ku laabatan kale u sheeg gabadha shaqaalaha inay ii keento shaahiga. iyadana isla markiiba way aqbash hoos ayayna u degtay, waxayna bilowday gabadhii shaqaalaha inay u sheegto
goortuu sheegtay ayada hooyada iyo sii aaday hooyadna xilligaasi waxay haysay dharkii gabadha arooska cidina waxay tidhi gabadheedii balkaada dharkan kuusoo tijaabiye gabadhi ayaana markii dambe adasha waxayna tidhi hooye macan anigu waxaan doonayaa inaan jaamacadda aado tan kale waxaan doonayaa nin aniga aan jecelahay oo welibaan gurigaani keensado marka hooye macan arrinkan guurka ma aabiga la hadashid sababtoo aniga hadda diyaaru maye hooyadii ayaana waxay ku tiri gabadheydii aniga intaan waaba kaa maqlay aabba adow kaa maqla wixii kugu dhaca adiga ayaa isku dhigay tan kale wiilkan Mascuud waa wiil wanaagsan gabadheydii markaana ka hubay dharkan kale isku tijaabiye iyadoo weliba dhankaasi qolkii jiidka u sii jiiday si ay dharkaasi u soo tijaabiso iyadana isla markii way aqbashay kadibna dharka ay isku soo taagtay maamadii ayayna dib ugu soo laabatay maamadii goorta aritana waxay tiri waaw gabadheedii you're so beautiful macnaa dharkan aad baad ugu soo baxaysaa mana sugi karo maalinta laga gaaraya arooskaaga Yusrana wax ma isadhina meesha ayay ka todogtay maalinkii xigana aabeed ayaa waxa uu ku yidhi gabadheedii arooskaada 3 asbuuc kadib ayuu dhacayaa Yusra ayaa waxay tiri aab macaan 3 asbuuc way yar tahay sababtoo waxaa loo baahan yahay wax badan in la diyaariye markaas camal kadibna oday maxamed ayaa waxa uu ku yidhi gabadheedii si camal aniga mima taqaanimya arrinkaas aniga ayaa soo gabagabeynaya Yusrana waxay tiri okay aab macaan haddii sidaas tahay adiga ayaan ku daayay 3 asbuucna wax weyn maahan aabiyo hadalkiisii wata ayaana wuxuu yidhi gabadheedii aan kugu daray walaalka asbuuca soo socda waa uu soo laabanayaa marka sidaasi la socosay oo adiga arooskaada uga soo qayb galo gabadhii aad bay u farxday waxayna tiri okay aab macaan maalmihii xigana waxaa la gala in la qaban qaabad iyo weliba arooskii iyo arrimihii kale in la diyaariyo arrinkuna sidaas wanaagsan ayuu ku socday dhankale xaaji maxamed wuxuu go'aansaday gabadhiisa arooskiisa in lagu dhigo hotel weyn oo weliba 5 star kaasoo magaalada bartankeeda ku yiilay hotelka ayaa waxaa loo qorayay si qurux badan kadibna xaaji maxamed xaaskiisa oo madiinaed ayaa hotelka dadka si ay bal u soo fiiriso goortaysa tagta waxay aragtay hotelka si qurux badan in loo diyaariyo weliba sidaasoo kalena kay qurux badan meeshii loogu diyaariyey iyadoo aad u faraxsan ayayna gurigii ku soo laabatay dhan kale qoyska Mascuud uu ka soo jeeday iyagana isdiyaaris ayay ku jireen goortaysa madiina gurigay si aad soo gaarto waxay bilowday gabadheeda dharka arooska inay u soo geliso iyadoo weliba xilligaasi aad ugu faraxsaneed waxayna tiri gabadheedii maanta farxaddeeda lama qiyaasi karo waxaan sugaya sanado badan iyadoo gabadheeda halkaas hab ku siisay kadibna u soo kaxaysay dhankaasi baabuurkana xilligaasi waxaa ku sugaya Mascuud xilligaasi kuma uusan faraxsanayn gabadhan inuu guursado sababtuna waxay ahayd inuu isaga qof kale u jecel yahay qofkaasna qof kale ma ahin waa gabar kale lagu magacaabo Rooya waxayna isjeclaayeen ilaa intii jaamacadda isla dhiganayeen waxayna qorsheynayeen mustaqbalka inay isguursadaan laakiin saaxiibkiisa ayaa arrinka u diiday una bilaaway gabadhaas inuu guursado wuxuuna go'aan ku gaaray gabadhan Mascuud inuu ku daro Yusra goortii baabuurka si aad soo gashay waxay dareentay ninkan inuu murugaysan yahay waxayna weydiisay wax qaldan isagana wuxuu u sheegay arooska inuu ku faraxsaneen goortiisa Yusra intaasi maqashay laftarkeeda aad bay ugu farxdeedana waxay tiri saaxiib aniga xitaa arooskan ma doonayo laakiin ka waran haddii aan iska dhigno dad faraxsan si aan la ka arrinkeena nagula dareemin Mascuudna isla markiiba waa aqbalay arrinkaas aad buu ugu farxay iyada ayuu uga mahadceliyey labadoodana waxay bilaabeen xilligaas inay la cadeeyaan baabuurka iyana ka soo degeen kadibna hotelka ay gudaha u soo galeen ninkaas xilligii xafladdaas xiriirinaya waxaanu ku yiri mudan yal marweyn waxaan ka doonayaa inaad ila soo dhaweysaan aroosadii iyo weliba arooska kadibna gudaha ay u soo galeen dadka idil ayaana u kacay waxayna bilaabeen shacab inay ku soo dhaweeyaan Yusra iyo Mascuud oo xilligaasi gacmaha iska haystaayana gudaha soo galay masraxiina soo fuulay kadibna waxay bilaabeen labadooda inay ciyaaraan xafladiina si wanaagsan ayay u socotay ilaa laga gaaray gabagabadii hortiisa gabagabada laga gaaray dadka ayaa sawiro la galay gabadhii aroosadda ahayd iyo weliba sidaasoo kale ninka aroosadda ahay si wanaagsan ayayna xalfadaas u dhacday hortiisa xalfadii siyaasay u soo gabagabowday ayaa xaaji maxamed wuxuu u yimid arooska iyo weliba aroosadda waxaana ku yidhi gabadheedii iyo weliba wiilkay waxaan doonayaa bisha malabka inaad ku soo qaadatiin dhankaas iyo Abuja sida kale wax walba aniga ayaa inii diyaariyey hadda waa inaad baxdaan iyagana aad bay ugu farxeen kadibna baabuurka ayay hor ka galeen kadibna darawalka ayaa dhankaas laboorka u kaxeeyey hortiisa laboorka sidaas u gaareen ayay diyaarad ka soo qobsadeen ugu dambeyn safar yar oo ay soo galeen ayay ugu dambeyntii waxay soo gaareen naamida Asiwika International Airport Abuja goortaysi ay u soo degeen qof ayaa hore loogu sii diyaariyay laboorka ka soo doonay wuxuuna ku yiri mudan iyo marwe soo dhawaada iyagana way u mahadceliyeen kadibna safar ayay u soo kaxeeyey safar dheer ay ugu dambeyntii soo galeen waxay soo gaareen guriga quruxda badan ee loo diyaariyey hortii gabadhii yarta ee Yusra guriga aragtay aad bay la dhacday waxay tiri wow guriga aad buu qurux badan yahay kadibna iyagoo loo gacmaha iska haystay guriga gudaha u soo galeen waxayna bilaabeen bal gurigan quruxda badan iyaga loo diyaariyey inay gudaha ay dhex galaan laakiinse goortii sidaas guriga u soo galeen waxayba ogaadeen guriga inuu yahay guri dabaqa dhanka hoosena waxaa ku yiilay qol jiifa sidaasoo kalena qol fadhiya halka dhanka sarena ay ku yiilo qol kale oo jiif iyo weliba qol kale oo fadhiya sidaasoo kalena jikooyinka iyo weliba musqusha ay u sii dheer yihiin si kastaba haatee Mascuud oo dhanka sare aada ayaa isla markiiba Yusra u yeeray
wuxuuna ku yidhi waxaan doonayaa inaan arrinka la hadle waa inaad ii timaadaa iyada xilligaas hoos ay joogtay islamarkiina waa ay soo orday ninka ayeen u timid wuxuuna ku yidhi dhegeyso waxaan doonaya inaan arrin kuu sheego ani adiga horta waad ogtahay hore ayaan kugu sheego waxaan ku dhahay gurkan waa laygu asbay anigana lagama yaabo marnaba inaan ku jeclaado marnaba haddaad qalbigeeda gashatay in anigu ku jeclahay taas qalad ayay ahayd uu ku yidhi waxaana gurigan ugu noolaanaynaa sida laba qof oo kale ajnabiya marnabana maskaxdaada ha soo gashay inaan noqonayno nin iyo xaaskiisa sidaasi la soco hortii yusra intaasi maqasho way aamini weysay saanna arrinka uma aysan malaynayn isla markiina waa ay ka aqbasho waxayna tiri okay dhimale hoos ayayna isaga soo degtay kadibna waxay bilowday inay habeenkii sidaasi ku seexato subaxii ugu horreyda markaysa usoo toostana salaadeeda ayay dukatay kadibna dhankaasi jikada ayay aadda waxayna bilowday inay ninkii usoo diyaariso quraacdii weliba xilligaasi quraac yaroo fudud ayay ku soo tuurtay hortii ninkii mascuud ay dhanka sare uu ka soo degayay waxay ku tiri subax wanaagsan xilligaasi mascuud wuxuu xirnay dharkii jimka iyadana lama uusan hadlin waxayna ku tiri xalay hurdaasi eed laakiin sida deeq uma uusasayn isla markiiba dhankaasi albaabka ayuu ka baxay bannaanka ayuuna aaday iyadiina waxay bilowday inay aad isaga murugooto si kastaba ahaatee iyadii oo meeshiis ka fadhiisa ayaa saacadii bar ka soo wareegtay ninkiina waxa uu ka soo laabtay dhankaasi jeemkii u aaday goortaasa guriga sidaas ugu soo laabtay iyo waxa ay ku tiri quraacda ayaan ku keenaa mise marka hore waa soo qubaysanaysaa mascuud ayaa isla markii ugu jawaaba aniga wax baahay ima haysa kadibna meesha ayuu ka tegay qolkiisa ayuuna aaday iyadana daqiiqada markay ka soo wareegto waa ay soo baxday kadibna qolkiisa ayuu soo bashay waxayna ka tiri cuntadaada waa ay kaa qaboobaysaa isagana isla markii waxuu yidhi aniga hore kuuma sheegin oo ma baahni waxayna ku tiri aniga hadda quraacda waan ku diyaaray xitaa wax yar ka qaado wax yar afka ka gelgeli isagana isla markii waxa uu ku yidhi okay kor iu keen iyadana isla markii waa ay soo orday waxayna bilowday quraacdii yarkaysa ku diyaarisay inay u keento miiska ayayna u saartay kadib ayuu wuxuu bilaabay cuntadii inuu halkaasi ku cuno iyadana markaasi waxay fadhiisay kursiga kasoo horjeeda waa ayna fiirsanaysay intaasi uu cuntada cunayay hortoose cuntadii sidaas oo u dhammaystay ayuu waxa uu ku tiri waxaan ku weydiinayaa goorma ayay doonaysaa shaqada inaad bilaawdid isagana waxa uu ku yidhi berri ayaan bilaabayaa kadibna waxay tiri saaxawse camal lehe waad og tahay maadaama hadda dhowaan isguursanay maad lowda asbuucaad iska joogtay kadib shaqadaad bilaawdid isagana wuxuu ku yidhi aniga hore ayaan kugu sheegay aniga marnaba lagama yaabo xaaskayga inaad noqotid cuntadii cunaya ayuuna isla markiiba ka tegay meeshiina uga dhaqaajiyey gabadhii yusrana waxay bilowday meeshii inay isaga murugooto xilligaas xillimada ay ka daadanaysay alaabtii ayay isla markii meeshii ka soo qaaday dhankaasi jikada ayayna geysay wayna iska biiraacisay xilli galabtii ay tahay ninkii mascuudin ah xilligaasi oo cayaaro ka fiirsanayay telefishinka ayay isla markii waxay bilowday inay dhinaciisa ay soo fadhiisato waxayna ku tiri waxaan doonayaa daqiiqado yar inaan kula hadlo isagana waxa uu yidhi okay maxaad iga rabtaa ii sheega iyadiina waxay ku tiri saaxiibow waxaan doonayaa arrin yar inaad iga xalis arrinkaasna wax kale maahan maadaama waalidiinteedii jaamacadda ii diideen adiga waxaan kaa rabaa inaad xoogaa lacag isiid si aan admishanka jaamacadda uga helo weliba jaamacadahan abuuja ku yaalla waxbarashadan sidaas uga bilaabo isagii ayaan isla markii waxa uu yidhi maya uma ogolaanaya inaad jaamacad bilaawdid kadibna waxay tiri saaxiibow waxaad diidday inaa xaaskaaga noqdo haddana ma waxaad diidaysaa jaamacadda inaan aado kadibna iyadoo xanaaqsanayay meeshii kasoo tagta hoos ayana timid wiifow meeshaas yiil ayana bilowda inay isaga fadhiisato kadibna waxay tiri hadalkan yaa allah aniga maxaan qalado ilaahayow aan sameeyey waxaanoo dhibaato anigaan xilligaanu marayaa iyadoo weliba xilligaasi cirka fiirinaysa waxayna tiri waxaan doonayaa inaan ku noolaado gabdhaha ficii nolosha ay ku nool yihiin waxaan rabaa inaan jaamacad aado ilaahayow maxaan qalado aniga aan sameeyey ilaahow waan ku baryaa tan hadday tahay imtixaan aad igu tijaabinaysa waan ku baryaa iisoo fudleey xilligaasi ninkii mascuud ayaa dhanka daaqadda ka fiirinaya waxa uuna ku yidhi walaalay jirjiraca intaa iska daysida biyahan aan ku diyaariyey kaala meesha ka qaado iyadana isla markiibay linta ayay iska jirtay kadibna waxay soo aaday dhankaasi qolkii sare hortiisa qolkiistaan ugu timid waxay ogaatay ninkii inuu meesha ka tegey biyo yar oo faanta uu meesha ugu diyaariyey isla markiina qaadatay waxayna bilowday biyo yarka inay meesha ku cabto goortaysa biyii sidaas soo dhammaysta ayay geesi yarka ay biyaha bannaanka isaga sii tuurtay kadibna jikada ayay aadda waxayna bilowday inay casho ku tuurto maadaama xilliga cashada loo dhow yahay kadibna waxay sidatay gaaskii cuntadii yarka ayayna isku dartay xilligaasna waxay doonaysa bariis inay kariso goortaysa bariiska sidaas ugu jeesa ayay waxay go'aansatay biyihii kule iyada hore u siyaarsatay inay ku shubto taasi darase biyihii ayada ayay ku daateen oo dhankaasi gacmaha ayay wax ka soo gaadheen kadibna waxay bilowday inay aad u qayliso waxayna tiri mascuud oo isla markii yaabo ayaana dhankaasi kore ka soo degay goortiisa uu sidaas u soo degay meeshii oo la rabay gabadha yarta inuu ka caawiyo waxa uu ku yidhi walaalay maxaad alaabta u jebisay isla markiina waa ay yaabtay waxayna tiri waraa maxaa kaa qaldan gacmahayga ayaa gubanaya adigana waxaad ka fakaraysaa alaab buwata iyadoo weliba xilligaas kor u qaylinaysaa kadibna waxa uu yidhi anigu waxbaygama gelin wixii adiga ku soo gaara ee alaabtan walaalay ha naga jejebin yusra xilligaas way aamini weysay sababtoo waxay filaysay inuu ninkaan caawinaya kadibna waxay ku tiri
maxaa kaa qaldan xitaa haddaan xaaskaada ahayn qof miskiina maanta macaawilaheen miya isagana isla markiiba warda firiidka ayuuna tegey kadibna baraf yar ayuu ka soo bixiyey wuxuuna yidhi barafkan yarka iska saar wuxuuna sidaasoo kale usi raacsiiyey isaga inuu hadda cayaar leeyahay uuna doonaya inuu baxo kadibna waxay tihi waa ujeedaa adiga cuntada cunleed ayaan ku karinayaa adigana sidan ayaa ila dhaqmaysaa isagana dheg jalo moosina meesha ayuu ka tegey goortii yartahay wixii iska xalisna gacanta iyo wax isaga dubtay kadibna cuntadii ayay dib ugu laabatay waxayna bilowday cuntadii isagayna u kariso daqiiqado yar kadib cuntadii iyadii waa ay dhammaysay kadibna waxay soo aaday dhankaasi qolkii isaga uu ku jiray waxayna ku tidhi cuntadaada waa diyaar mascuud xilligaasi moobilkiisa ayuu ku mashquulsanay waxayna tiri mascuud adiga ayaan kula hadlayaa qadadaadi waan kuu diyaariyey ee bax kaale cuntada soo cun isagana isagoo aad u caraysanaya waxa uu ku yidhi anigu waa kuu sheegay ma baahni bax qolkayga bax mana doonaya cuntadaada inaa cuno kadibna waxay tiri waad ogtahay aniga waxaan ahay xaaskaada marka waa inaad ixushumaysaa isagana wuxuu yidhi hore ayaan kugu sheegay inaan marnaba xaaskay aan noqon karin marka waa inaad qolkayga baxdaa yusra oo xilligaas aad u cadhaysanad ayaa waxay ku tiri dhegayso haddaan xaaskaan ahayn arooskaan aad doonayn ma iska kay fasaxdide tan kale xitaa arooskayga haddaan rib anigu waxaan ka codsaday jaamacad inaad idgeysid maxaad jaamacaddii igu diidan tahay maadaama aniga keligay gurigaani aan joogi karin kadibna waxa uu ku yidhi aniga hore ayaan kugu sheegay jaamacadna kuma geenayo gurigan ayaan joogaysaa yusra waxay isku dayday ninkii inay ku qaylisay labadoodana buuq ayaa meeshii ka dhashay mascuudna isla markiiba uu xanaaqay kadibna gabadha ayuu dhinac isaga riixay isla marka uu sidaas u riixana ayadina dhulka ayay ku dhacday dhankan dambe ee canka ayaana dhanka sariirta uga dhacday isla markiina waxay tidhi kaalay oo haddama waxaa gaartay xitaa aniga inaad gacan ii qaadid mascuud oo aad u cadhaysanayaana wuxuu ku yidhi mar dambe codkaada si aan haddaa kor igu qaadido ugo wixii kugu dhaca adiga ayaa isku dhigay isla markiina meeshii uu ka dhaqaaqay dhankaasii jiimka ayuuna aaday yusra aad bay isaga murugootay waxayna bilowday meeshii inay isaga oyso waxayna kadibna meeshii ayay ka tagtay dhankaasi musqusha ayayna aaday si ay wejiga isaga soo nadiifiso goortiisa musqusha ay si aad u soo gashana wejigana iska nadiifisa waxay aragtay cankeeda barar weyn uu soo gaaray kadibna go'aan waxay ku gaartay baraf inay iska saartay si uu bararkan uga babo isla markii iyadoo saas isugu jirtay moobilkeeda ayaana soo yeeray goortiisa moobilkii fiirisa waxaa soo wacday gabar ay saaxiibo ahayeen taasoo lagu magacaabaya saara ayaana waxay saaxiibadeeda ku tiri saaxiiba waxaan maqla adiga inaa aroostay tan kale arooskaada iga waran waxaan u malaynayaa si wanaagsan inuu kugu socday yusra ayaana isla markiiba iyadoo aad isaga murugaysan waxay ku tiri wax walba way wanaagsan yihiin kadibna saara ayaa waxay ku tiri saaxiibey hadda aniga waxaan nimid dhankan abuja marka sidee aragtaa haddii caawa aniga waqti qurux badan aan soo wada qaadano halkaasaan kusoo sheekaysanno iyadana isla markiiba waxay tiri walaalay aniga hadda wax barmishan maysoon bannaankaan ugu soo baxo laakiin ninkayga ayaan ku dhibayaa isiga la hadal iyadana waxay tiri okay waa arrin wanaagsan aniga ayaa la hadlayaa isagayga dhiib isla markiina iyadii waa ay soo rodo weliba moobilka iyada wadda ninkii mascuud ayay noo timid kadibna waxay tiri saaxiibadda ayaa doonaysay inay kula hadashay la hadal isagiina isla markii waa uu ka aqbalay moobilka ayuuna ka qaaday dhigta ayuuna saaray saara ayaan isla markii hadashay waxayna tiri mascuud waan ku salaam waxaan rajeynaya wax walba inay fiican yihiin isagana waxa uu ku yidhi haa wax walba ay fiican yihiin sidaan aan ku caawiyaa saara ayaana ninkii mascuud waxay ku tiri waxaan doonayaa saaxiibadda bannaanka inaan caawa aadno waqti qurux badan soo qaadanno ee ma u ogolaanaysaa isagana waxa uu yidhi haa oo iyada wax fasaxa uma baana saara ayaana ninkii u mahadcelisay yusra goortii intaasi maqasho way aamini weysay laakiinse goortii moobilka saas uga qaatay ayuu waxa uu ku yidhi haddii aad jecesha yusra saaxiibadda waad la wadaagi kartaa sida dhaawacaya uu kugu soo gaaray sababtoo xilligaasi iyada dhanka camkoo dhanba waa uu bararsanay iyadana isla markiiba dhinaciisa ayay soo jallaaday kadibna waxay tiri lagama yaabo arrimo noocan oo kale dadka inaan la wadaago weliba arrimo gurigay ku saabsan isla markiina sidaas ayay u kala wareegtay isagana waxa uu yidhi aad baan uga xumahay wixii aan kugu sameeyey iyadana siimay sugina waxay bilowday dhankaas muqdisho inay aaddo si ay isku diyaarsay maadaama saaxiibadeeda ay sugayso isla markiina waxay bilowday wejiga iyo waxaas inay dhaqato oo hortaysa dhammaysatan ayay megab wejiga marsa si aan arrinkeeda looga dareemin kadibna si qolkiisa ayay ugu timid waxayna tiri baabuurkaada mii dhiibi kartaa caawa keliya isagana waxa uu yidhi maya kuma ogolaanayo laakiin aniga ayaa meeshii ku geenaya iyadiina waa ay ka aqbasha oo kama aysan diidin isla markiina gabadhii ayuu meeshii ka soo qaaday waxuuna geeyey meeshii ay saaxiibadeeda kula kulmaysay oo hortaysa sidaas meeshii u soo gaareen ayay waxa ay ku tiri saara iska bara ninka waa ninkayga mascuud iska bara gabadhan waa saaxiibadii saara meeshii ayayna isku barteen hortaysa meeshii wax yar ay ku sheekaysteen ayaa ninkii mascuud ah waxuu yidhi aniga hadda waan iska sii tegayaa laakiinse ka hor intuusan sidaas isaga sii tegin ayuu wuxuu yidhi xaaskii maxaa kugu dhacay inta ay u macsalaamaynaysay miya yusra xilligaasi way aamini weysay
siduu ninkan u hadlayo kadibna waxay ku tiri okay dhimale macsalaamo isagana wuxuu yidhi maxaa dhacay hab maysiinaysi miya iyo weliba hal shumisir iguma daraysid yusra oo xilligaas indha ka soo haraya islamarkiiba ninkii hab siisay shumisirna siisay kadibna waxay tiri okay macsalaamo isagana meesha ayuu islamarkiiba ka dhaqaaqay saara oo xilligaas arkaysa waxay tiri waaw alla qoyskan maxay aad isugu soo baxayaan laakiin xaqiiqdu waxay tahay iidaydisan ogeyn nolosha dhabta ee yusra iyo weliba mascuud si kastaba ahaatee yusra iyo weliba saaran meesha ay ka tageen habeenkiina waqti qurux badan ayay soo qaateen kulankaasna yusra saaxiibadeed wax lama aysan wadaagin kadibna guriga ayay ku soo laabatay sida ayayna ugu nooleen bilooyin ayaana sidaas uga soo gudbay ninkii mascuud ah xitaa wuxuu diiday cuntadii inuu cuno mar walbana iyada uu ku qayliyo yusrana waxay ahayd gabar dulqaad badan oo waxay bilowday inay isaga dulqaato noloshaas ayayna ku nooleen maalinkii la gaaray dhalashadii ninkii mascuud ahay gabadhii yartahay yusra waxay u diyaarisay keeg aad u qurux badan maadaama iyada ay aad u taqaynay sida keega loo sameeyo wax walbana waxay u samaynaysay si ay ninkaas u soo dhowaysato xilligaasi gabadha yusra ay diyaarinaysay keega ninkii guriga ma uusan joogin oo arrimo shaqa ayuu u baxay iyadana markii u diyaarisay waxay u soo dhex dhigtay qolkii fadhiga ee cuntada loogu talagalay yusra xilligaasi farxadeeda lama qiyaasi karin xitaa ayada waxay u soo labisay si qurux badan si ay ninkan u soo jiidato nasiib darrota taas ma aysan dhicin ninkii waxay sugaysaa 6 maqribna laakiin 6 maqribna ma uusan imaan kadibna waxay tiri arrimo jaam ayuu galaa laga yaabaa laakiin way iska sugtay saacadii mar kale way orodo oo 10kii habeenimo ayay gaartay kadibna way ka murugootay mobilkiisa ayayna isla markii wacday laakiin mobilkii kama uusan qaban kadibna voicemail ayuu reebtay waxay ku tiri isoo waa waxaan rajeynayaa inaad fiican tahay markaad voicemailkayga aragtid laakiinse ninkii ayada waxba uu soo jawaabin isla maray saacadii kor u sii dhaaftay 11kii habeenimo welina ninkii ka fikiraysa yaalbak la soo garaacay hortaysa sidaas albaa ku birto waxay aragtay ninkii mascuud ahay oo xilligaasi gacanta ka haysa gabar kale eedina way aamin weysay kadibna waxay tiri maxaa khaldan ayna tahay gabadhan aa guriga keentay mascuud ayaana isla markaa hadla waxa uuna ku yidhi waxaan doonayaa gabadhan caawi inaan waqti la qaato marka waan ku baryayaa buuqayo kor qaada yusra aad bay u xarootay waxayna tiri ma og tahay maanta dhalashada inay tahay adigana keegan ku diyaariyey weliba waqti aan geliyey adigana waxa ay samaynaysaa maanta inaad gabar kale guriga u keentid mascuud ayaa isla markiiba gabadhii ugu jawaabay ma doonaya hadalkada maalacnigan dhegeysta subax ayaana wada hadlaynaa isla markiina gabadha ayuu gacanta ka qabsaday kadibna dhankaas kor ayay isla aadeen yusra way aaminaysa waxayna arkaysa isla markiina keegay ninka u diyaarisay ayay meeshii kasoo qaaday marka hore waxay taada qashinka maa ku darta haddana waxay tiri maya maadaama adii waqti badan aad gelisay waxay baan ku gaartay inay fridjka gelisay si aysan baalkan u qasaarin waqti badanna ay gelisay hortiisa fridjka sidaas u gelisay waxay soo aaday dhankaas kore iyo weliba meeshii uu gabadhii la aaday kadibna halbaabkay soo furtay waxayna ku tiri mascuud maxaa sidaan ila dhaqmaysaa maxaan aniga kaa galabsaday noloshan aad ii gelinaysaa mascuud ayaa isla markii ku qayjay waxuuna ku yidhi walaalay buu ay kor qaad albaabkan hore iigu sixir aniga waxaan doonayaa islaantan waqti inaan kaa qaatee kadibna waxa ay ku tiri maya lagama yaabo isla markiina guriga ayay gudaha u soo gashay islaantii oo meesha fadhisa ayana bilowday inay ku qayliso laakiinse mascuud ayaa kor istaagay waxauna yidhi kuma ogolanaya gabadha inaad taabatid maxaana kaa qalda anigu waa kuu sheegay bax iga leexo isagoo weliba ku qaylinaya iyadana qaylihiisii maysan dhegaysan isla markiiba gabadhii ayay kusoo duultay waxayna bilowday inay la dagaalanto dagaal dhowr ay gabadhii kula jirtay ayay isla markiiba gurigay ka soo saartay kadibna dhankaasii bannaanka ninkii waardiyaha fadhiya ayay la hadashay waxayna ku tiri dhegayso waxaan kaaga baahanahay gabadhan bannaanka inaad iiga saartid gurigana aysan mar dambe igu soo laaban waardiyi albaabka fadhiyan isla markiiba uu aqbalay kadibna gabadhii ayuu bannaanka u tuuray inkastoo uusan aqoon wax xilligaasi meesha ka socday goortiisa gabadhii sidaasi bannaanka loogu saaray yusra iyadoo aad u caraysanayay dib waxay ugu soo laabatay ninkii mascuud ahay kadibna ninkii mascuud ayay u timid waxayna tiri mascuudow ii dhegayso waxaani maxay ka micno tahay waad og tahay bilooyin badan ayaan gurigaani jooga wax walbana waxaan isku dayayey sidaan adiga aan kuu soo jiito laakiin maanta cagsigeeda ma waxaad iga dhigtay gabar guriga inay u keento tan kale aan kuugu daro gurigan waxaan ku suganahay 8 bilood adigana marnaba ima soo dhowaan oo jirkayga ma aadna taaban keliya xitaa hal mar ma aadna taaban taasoo ka dhigan aniga iyo adiga inaan laba ajnabi kala maxaa aniga qalad aan kaa galay noloshana maxaa si aan igu aqaabaysaa tan kale gabdhaha hortooda maxaa adiga si aan igu caynaysaa xushmo darro ayaan kaa mudanahay tan kale gurigaan intii bilood aan joogay ma aragta anigoo si xun kuula dhaqmaya mise aniga ayaa qof xun ah mascuud tan adiga kaama filin laakiin waxaad waa waxaad ka baxa isla markiina dhinacii isaga rixday waxayna ka soo tagtay meeshii ay taagneedeed oo qolkay toos isaga soo aaday xilligaas yusra waxay dareemaysaa xanuun saayida ilimadana waa ay ka qubanaysa xitaa ma aysan filin ninka iyada ay jecleed maanta gabar kale guriga inuu u keeni doono habeenkiina hurdo kama ay soo dhicin oo meeshii ay isaga fakaraysay subaxiga markii la gaaro waxay u malaynaysay ninkii mascuud ahay inuu raaligeli doono laakiin taas ma aysan dhicin sida caadadeedana goortii ay soo toostay salaadeeda iska bixisay jikada ayay gashay waxayna bilowday inay cuntadeeda karsato laakiin subaxani waxay samaysay wixii wax hore ka duwan ninkii mascuud ahay quraac uma aysan diyaarin
mas'uulna goortuu qolkii fadhiga yimid waxa uu ku yidhi quraacdiidii aaway laakiin iyadu way iska indhatirtay islamarkiina waxa uu ku yidhi yusra maxamed adiga ayaan kula hadlayaa quraacdeydii aaway iyadana islamarkiis maysan dhibin waxay tidhi saaxiibow baay hadday ku hayso jikada waa taasi gal oo cuntada iska soo karso isagana waxuu yidhi maxay tahay xushmadarradan aynu dhaqmaysid markaasay tidhi gabadhii aa keensanaysa xal ayadoo quraaca ku kariso mascuud wuu aamini waxa uu maqlaya kadibna waxa uu ku yidhi sida ay hadlaysaa waad og tahay ninkaada inaan ahay marka waa inaad si fiican haadiila dhaqantaa iyadana waxay tidhi haw riidaas iska daa jikadu waa taas haddii aad shaqaysanayso shaqayso mascuud xilligaas indhaha ayaa ka soo haray waxaana uu maqlayo iyadana cuntadii yarta ayay diyaarsatay islamarkiina meesha ayay ku cuntay goortii ay dhammaysatana waxay iska hadday dhankaasi qolkeeda aad bayna isaga murugayteed ilintuna aad bay uga daadinaysay weliba iyadoo ay ku soo lalabayaan wixii xalayda ku dhacay goortaysa qolkii sidaas u soo gashay islamarkiiba waxay wacday saaxiibadeeda saara waxayna ku tidhi saaxiibe waxaan doonayaa inaan kulanne weli ma abuuji ayaa ku sugan tahay saara ayaana saaxiibadeeda ku tidhi haa saaxiibey weli abuuji ayaan ku suganahay oo aad naga imaan kartaa yusra ayaana saaxiibadeeda ku tidhi okay saaxiibey aniga ayaa hadda ku imaanaya waana soo lebisanaya waxaana doonayaa inaan adiga sheekaysano iyadiina waxay tihi okay saaxiib waan ku sugayaa moobilka ayana ku jirtay kadibna waa ay labisatay baabuur taksi ayaana bannaan ka qabsatay ugu dambayntiina gurigii saara ayay soo gaartay laakiinse xilligaas ay timid ninkii waardiyaha ayaa bannaanka joogay kadibna waxa uu ku yidhi haddii aad doonayso guriga gudaheena u bashaa wareyn saara waa inaad la hadashaa saar oo dhanka sare taagnadaya islamarkiiba aragtay kadibna waardiya ayay la hadashay waxayna tiri u ogolaa gudaha inay soo gasho gabadhiisa goortay gudaha si aad soo gashay islamarkiiba saarana hoos soo degtay saaxiibadeeda ayay u timid kadibna hab ayay siisay laakiin xilligaas yusra ilinta ayaa ka daadanaysa oo ilinta way cisho weysay saarana way aamin weysay kadibna waxay tihi saaxiib maxaa kugu dhacay ma mascuud ayaa wax khaldan kugu sameeyey ii sheeg saaxiibay sida ayay wax u jiraan gabadhii yarta ee yusra ayaa islamarkiiba neef qaadatay kadibna waxay bilowday gabadhii sheekada inay uga sheekayso waxayna ku tidhi saaxiibey anigii mascuud gurigaas waan ku noolnahay laakiin xaqiiqdu waxay tahay uma noolin sidii nin iyo xaaskiisoo kale tan kaloo noo sii dheer waxay tahay ninkaani waxaan isku dayay inaan soo dhowaysto isagana marnaba cuntadii aan guriga u kariyey ma uusan cunin mar walbana wuu isaga kay fogeynayey xilligaas gabadhay sheekaynaysana ilinta ayaa ka daadanaysay tan kale aan kugu daray maalinkai aan kusoo booqanayey wejigay meeg-ab ayaa ii marsanay sababta waxaan qarinayey dhibaato isaga dhankan canka iga soo gaarsiy maruu dhinacii tuuray anigoo intaasoo dhan ugu dulqaata ayaa tan kaloo iba xanuunka badnay waxay ugu dhacday habeenkii xalay la soo dhaafay ninkan maadaama xilligii dhalashadiisa ahayd waxaan u diyaariyey keeg wakhti ayaana geliyey habeenkii o dhan saan u sugayey maray 11kii war u dhaaftay ayuu guriga yimid ka waran xilligaas uu imaanaya haddii gabar uu guriga keenay oo weliba uu doonaya xilligaas inuu la seexdo saara xilligaas way aaminaysa waxay maqlaydo saara oo caraysanayaana tiri ninkaas waa baaster maxaa maroon isaga furi weysa hadduuba intaasoo dhibaato uu ku geystay kadibna waxay tiri saaxiibey waxaan u malaynayaa inaan iska furi karo anigoo waalidiintii ka cabsanaya iyadana waxay tiri xitaa waalidiinta xilligan ka hadlaysida abuuji ayaa ku sugan tahay arrinkana waa uu fudan yahay maxkamadda ayaana tegaysa ninkaana waa dacweynaysa adigoo u sheegaya wixii walba uu kugu sameeyey yusra ayaan islamarkii ku tiri okay saaxiibey waan ka fekerayay arrinkaasi laakiin ka waran maanta haddii adiga aan kula joogo caawan aan kula seexdo sida ayaa u aragtaa saara ayaana saaxiibadeeda ku tiri saaxiibey waa saaca karta ha ka cabsan guriga aniga ayaa kugu soo dhoweynaya welina waxay ugu sii dartay waxay tiri maadaama murugaysan tahay ka waran haddii aan baxno kadibna bannaankaadna aan magaalada kusoo wareegno yusrana way ka aqbashay kadibna labadooda way isdiyaariyeen waxayna soo aadeen dhankaas iyo bannaanka si ay waqti qurux badan bannaanka ugu soo qaataan gabadhii saara oo magaalada si fiican u kala taqeen ayaa gabadhii waxay geysay maqaayad lagu sameeyey biisa kadibna biisa ayay dalbadeen iyagana daqiiqad kama soo wareegana waa loo soo dhigay waxayna bilaabeen meesha inay ku cunaan intaasay cunayeenna gabadhii yarta yusra waxay tiri alla sannado hore maxay ugu dambaysay baasha inaan afkeyga saaro saara ayaa saaxiibadeeda ku tiri oo cadaa saaxiibey xilligaasay cuntadii meeshay ku cunayeen ayaa wiil gudaha u soo galay kadibna saara dhinaceeda ayuu soo fadhiistay cashumis ayuu dhanka daanka uga qabtay kadibna waxa uu ku yidhi jaceylkaygii maxaad halkani ka samaynaysaa saara ayaan isla markaa hadashay waxayna tiri saaxiibkayow iska bar gabadhan waxaa lagu magacaabaa yusra isagana isla markiiba nin weynto iska dhigayo wuxuu ku yidhi hey waan ku salaamay magacaygu waa kariim iyadana waxay ku tiri magacaygu waa yusra hortiis ladu isbarteen ayay kadib waxay saara ku soo jeesteen ninkii waxayna ku tiri kariimow makaliga ayaa yimid isagana wuxuu yidhi maya saaxiibkii cadnaan ayaa ila socdaa laakiin goortii cadnaan la yidhiba isagana maqaayadda ayuu gudaha u soo galay kadibna wuxuu ku yidhi hey saara iyo waran longi times maanan arkin saara ayaana cadnaan ku tiri saaxiib waan fiicanahay isagana isla markii waxa uu ku yidhi laakiin aan ku weydiiyey xabaddan quruxda badan ee dhinacada fadhiisayaa waaye saara ayaana isla markii ninkii cadnaana ku tiri waa saaxiibadeeda yusra iyadoo xilligaasi gacanta bannaanka u soo taartay tusaysan in ayada la qabo kadibna waxuu yidhi aad baan uga xumahay waxaanba jeclaan lahay in aniga noqdon gabadhani qofkii faraantii gacanta u geliyo laakiin aan weysdhib ma leh ka waran laakiin
haddii labadeenna aan saaxiibo noqonno macquul maahano yusra ayaan isla markii ku tidhi yes dhib ma leh waan ku soo dhoweynayaa kadibna wax u dhiibay kaarkiis wuxuuna ku yidhi xil walbaad u baahata aniga waa isoo wici kartaa kadibna waxay ku tiri okay dhib ma leh iyadoo kaarka qaadatay kadibna boorsadii ay gashatay ninkii kariim ayaa wasaarab soo jeestay wuxuuna ku yidhi saaxiibani hadda waa iska sii baxaya waan isoo wacinaa arrimo kale ayaana xalinayaa saar ayaana ninkii ku tiri saaxiib maxaan dhahay meeshiina wax ka iibsato ma adimaan miya isagana uu dhoola cadeeyey kadibna wuxuu yidhi maya baabuurkaada ayaan bannaanka hore ku arkay kadibna waxaan bukaansadaba gudaha inaan usoo gala si aan adiga ku arko iyadiina way u dhoola cadeysay waxay tidhi aad baan kuu jeclahay isagana isla markii wuxuu ugu jawaabay sidaasoo kale aad baan kuu jeclahay waan isoo wacinaya waa ku salaamayaa iyadiina waxay tidhi okay guul ayaan kuu rajeynayaa isagana isla markiiba waa u baxay goortoosa sidaas u baxay iyasada saaxiibadiina kusoo jeestay waxay tidhi walaalay qofku jecel ayaa haysataa jawsan kaafakan aniga waad ogtahay nolosha xanuunka badan ayaan guriga kula jire wakhti dheer oo ay meeshii ku sheekaysteen habeenkii guriga ku soo laabteen iska seexdeen maalinkii xigay gabadha yusra xaafadeeda ayay ku soo laabatay hortaysa gurigiisaas ugu soo laabatay mascuud wuxuu fadhiyey qolka fadhiga xayaara ayuuna daawanayey saarana isma dhibinaya fadhiga ayay dhinaca kale uga fadhiisatay kadibna wuxuu yidhi xal hagee aaday iidana waxay tidhi saaxiibadda ayaan la socday halkaas ayaana joogay wuxuuna yidhi maxaad iigu sheegi weysay tan kale moogtaa inaan lagu ogoleen bannaanka inaa seexatid yusra goortay intaasi maqashay ismaysan dhibina moobilkeeda ayay isku mashquulisay kadibna waxa uu yidhi ila hadal adiga ayaan kula hadlaya yusra moobilka isticmaalaysana waa inaad joojisaa iyadana waxay tidhi saaxiibow af waad leeda waa hadli kartaa aniga moobilka iyo dhagaana iskuma xirna wixii aad doonaysay ina ii sheegtina ii sheeg mascuud ayaan isla markii waxa uu yidhi okay iga raalli noq wixii shalay aan kugu sameeyey iyadana xilligaas moobilkeeda ay ku mashquulsanaad kadibna waxay bilaadeen iska qosasho waxayna tiri waaw muuqaalkan aad baanu jeclahay kadibna wuxuu yidhi maxaa kaa qaldan yusra adiga ayaan kula hadlaya adigana moobilka ayaa ku mashquulsan tahay maad ilaahadashid moobilka yaba iska sii wadato waxayna tiri waaw muuqaalkan aad baan uga helo waa inaan degsadaa kadibna ninkii mascuud ah aad ba u xanaaqa wuxuuna yidhi maxaa kaa qaldan adiga ayaan kula hadlayaa moobilka ayaana ku mashquulsan tahay moobilka ayuuna ka qaaday yusra aad bay codhatay kadibna waxay tiri saxaaw maxaa kaa qaldan moobilkeena maxay ka qaatay isigana wuxuu yidhi adiga ayaan kula hadlayaa kadibna moobilka ayaa ugu mashquulsan tahay anigus iga raalli noqo wixii shalay aan kugu sameeyey iyadana madaxa ay u ruxday kadibna waxay tiri okay dhib ma leh hadda moobilkay ma qaadan karaa kadibna moobilka sidaas ugu soo qabanaya iyadii uu rabay inuu siiyo ayaa waxaa soo wacay ninkii cadnaanahay kadibna wuxuu ku yidhi cadnaan ayaa waaye iyadana isma dhibin moobilka iyo dafka tiri ninkii ayuuna jawaabtay waxayna tiri cadnaanow ii waran isagana wuxuu yidhi waxaan doonaya inaan ku imaadee mashquul maa tahay iyadana waxay tiri maya kadibna waxa uu ku yidhi bannaankan taagana ii imaaw yusrana isla markii waa ay farxday waxay ku tiri okay aniga ayaa ku imaanaya moobilka ayana ku jirtay mascuud ayaana yusra kusoo jeestay waxauna yidhi adiga ayaan kula hadlayaa yaa waay ninkani iyadana waxay tiri taa shaqada maaha wax lagu dirsana maahan ninka ayana iska dhaga tirtay isla markiina dhanka kore ayay aaday waxayna bilowday dhar aad u qurux badan isku soo taagto goortiisa labiska ay dhammaysay bannaanka ayay soo istaagtay mascuud ayaana kasoo daba orda waxauna ku yidhi marlaantiida bannaanka uma bixi kartid iyadana waxay tiri kaala saaxiib lugu ayo xirxiraadee bannaankii markay sidaas u baxdana mascuud ayaa gabadhii waxa uu ku yidhi okay si hadday tahay qofkaa raacayda xitaa ay bar iyadana isma dhibin isla markii waxay tiri cadnaan iska bara ninkan waa mascuud adigana iska bara ninkan waa cadnaan ayaa ninkii ku yidhi saaxiib barasho wanaagsan yusra ayuuna su'aal weydiiyey waxauna ku yidhi aan ku weydiiye ninkaadi miya mascuuduu doonaya xilligaas inuu jawaabo ayaa waxaa ka hormartay yusra waxayna ku tiri ninkaan ninkayga maahan laakiin guriga ayaan si wada jir aan ugu nool nahay mascuud oo aad u caraga ayaa isla markii waxa uu yidhi maxaa beenta ugu sheegaysaa waad ogtahay inaan ninkaaga haye yusra aan isdhibin ayaan isla markii waxay tiri saaxiibo goorme ayaa ninkayga noqotay cadnaan oo yaaban ayaan isla markii yidhi war xaaladdan loo dejiyo yusra ayaana ninkii mascuud ay ku soo jeestay kadibna waxay tiri dhegayso aniga ninkaani keliya waan raacaya kadibna waan ka soo laabanayaa laakiin ma doonaya inaan la saseexdo markaan ku badhayaa booqayga qaada markii aan soo laabta ayaan is arkaynaa kadibna dhankaasii baabuurka ayay aaday baabuurka ayana gudaha u galeen mascuud aad caraysan ayaa gurigiisa ku laabtay dhanka lase ninkii mascuud ahay goortii baabuurka u kaxeeyey wuxuu ku soo jeestay gabadhii yartaed wuxuuna ku yidhi aan ku weydiiye maxaa dhacay labadiinma dagaal ayaa inka dhexeeya iyadana waxay tiri haa dagaal yar ayaa jira laakiin xaaladdu waa ay degan tahay cadnaan ayana mar kale yidhi okay inta saddeed taa dhib male ka waran walaalay haddii meel meeshaan askram iyo yoogadaan ka soo qaadanno iyadana waxay tiri aad baanu jeclahay mana kaxaysad kadibna baabuurka iyo meel maqaayad ku soo istaajiyey labadana maqaayadda ayay fadhiisteen kadibna waxay bilaabeen miniga inay fiiriyaan miniga waxay reen markay helaanna waxay soo aadeen dhankaas iyo koontarka goortaysa siday u soo gaareen gabadhii xilligaasi meesha maqaayadda fadhiisay ee koontarka ayaa waxay ku tiri hadda shirkaddan waxay ku jirtaa sanad guuradeeda labaad marka sidaa darteed waxaan samaynay qiimo dhimisa aduukana maadaama lamaanayaal atiin qiimo dhimis fiican ayaa inii samaynay yusra oo xilligaas rabtay inay dhahdo lamaanayaal maniin ayaa waxaa ka hormaray cadnaan wuxuuna gabadhii ku yidhi sanad guuro la mid ah adigana waan kaaga mahadcelinaya qiimo dhimista aan inoo samayseen isla markiina meesha ayay ka soo dhaqaaqeen baabuurka ayayna gudaha u galeen xilligaasna xitaa hore waxay u soo qaateen biza si ay wakhti qurux badan waddada ugu sii qaataan inta ay sii socdaan dowladan intay waddada halkaasi ku sii cunayeen gabadhii yusra ayaa waxa ay tiri iyadu niyadda iskala hadlaysaa halla maxaan jeclaan lahay mascuud hadduu sidaan oo kale ila dhaqmi lahay anigu xitaa wax walba u sameeyey
kadibna cadnaan ayaa ku soo jeestay waxauna ku yidhi nolol noocan oo kale weligaa ma heshay iyadana waxay tihi maya kadibna wuxuu yidhi aad baan uga xumahay meesha ayayna bilaabeen inay wixii ku cuncunaan intii ay waddada ay ku socdeen ayuu waxa uu ku yidhi hadda walaalay hagee aadnaa iyadana waxay tihi saaxiibow adigaa magaalada taqaanide meelayna iska egey kadibna waxa uu ku yidhi okey beermeel meeshan ayaan aadaynaa waan isaga soo raxaysanaynaa kadibna waa isaga soo laabanaynaa iyadana isla markiiba waa ay ka aqbashay baabuurka ayuuna dhaqaajiyey wakhti dheeray magaalada ay ku soo wareegeen waqti qurux badanna ay soo qaateen ayuu waxa uu ku yidhi ka warmaan dalxiiskeenna iyadana waxay tidhi aad buu u fiicnaa weliba yoogadka ayibiisa aad baan uga helay xitaa mid kale ayaan jeclaa lahay isla markiina ninka cadnaan waxa uu ku yidhi gurigay ayay mid kala taalaa ka hor haddii gurigaan aadno yusrana kama aysa diideen isla markii way ka aqbashay kadibna baabuurka ayuu soo kaxiyey gurigiisa ayuuna keenay boortaysa gurigiisa u soo gashay waxay aragtay inuu ninkan uu ku nool yahay guri aad u qurux badan kadibna wuxuu yidhi gurigaani waa gurigaada ee ku soo dhowow iyadiina aad bay u farxday kadibna fadhiga ayay fadhiisatay ninkiina isla markiiba jikada ayuu aada waxuuna u keenay yoogadkay u baahnayd iyo weliba askareem ugu soo daray kadibna horteeda ayuu u soo dhigay waxauna ku yidhi wakhtigaada quruxda badan ku qaado iyadana aad bay ugu mahad celisay kadibna waxay bilowday inay yoogadka iyo askareemka meesha ay ku qaadato goortiisa askareemkii ay dhammaysay labadoodu waxay isla aadeen halkaasi qolka kale ee geemanka lagu cayaaro geem ayayna meeshii ku cayaareen sidana ay ku daawadeen cadnaan ayaana gabadhii waxuu ku yidhi walaalay waa xilli dambe waa inaad gurigaada iyadana waxay tihi waxaan bajeclaalahay in adiga kula joogo kadibna wuxuu yidhi maxaa dhacay yuusra ayaana ninkii ku tiri saxaabu beri maxkamadda ayaan aadayaa ninkan ayaan iska soo furayaa cadnaan oo yaaban ayaa yidhi maxaa dhacay iyadana waxay bilowday dhammaan wax walba inay u sheegto goortii ninkii cadnaan ah intaas oo maqla aad buu uga nahay wuxuuna ku dhaha walaalaykaas ninkuma noqda iska fur waaba nin xune iyadana waxay tidhi dhowaan ayaan iska soo gabagabay doonaa arrinkiisa cadnaan ayaana wuxuu ku yidhi walaalay aniga 2 asbuuc ayaa waxaan doonayaa inaan dubayaa waqti ku soo qaato kadibna aan soo laabto weliba hamid dambe ayaan baxayaa wuxuuna ku yidhi waan ku xiisi doonaa iyadana waxay tihi mid laata mida waa ku xiisi doonaa kadibna gabadha ayuu soo qaaday gurigeeda ayuuna keenay hortiisa uu gurigiisiaas u keenana ninkii mascuud ah xilligaasi geem ayuu ku mashquulsanaay iyadana koray iska aadda hameenkiina waa iska seexatay subaxiga markii la gaarana taagsi ayay qabsatay kadibna waxay ka codsatay maxkamaddii inuu geeyo taagseeliina wuu ka qabalay kadibna maxkamaddii ayuu geeyey hortii sidaas soo gaartay ayay bilowday in loo yara inay raadsato waxayna aragtay nin dhinac fadhiyo oo loo yara waynuu soo dhowaatay waxayna ku tidhi waxaan doonayaa inaad arrin ii fulisid isagana wuxuu yidhi maxaa waaye waxayna tiraan waxaan doonayaa ninkayga inaan iska furo waxa uuna ku yidhi maxaad isaga furaysaa iyadana wax walba ayay u sheegtay inuu dhibaato weyn u geystay weliba waxyeello u geysatay haddanay doonaysa in arag iska gabagabayso kadibna waxa uu ku yidhi ma intaasoo keliya iyadana waxay tihi haa intaas waa ina ii samaysaa weliba lacag haddaa u baahantaan aniga waan ku siinayaa isagana isla markiiba uu ka aqbalay kadibna kombiyuutarkiisa ayuu ku jeestay waxa uuna bilaabay inuu warqadiida su'aalo ugu diyaariyey wuxuuna ku yidhi warqaddan waa inaa iska soo saxiixdaa iyadana waxay tihi okey diyaar waaye aniga ayaa kuu soo saxiixaya kadibna warqaddani dib kuugu soo celinaya qareenkiina wuxuu ku yidhi okey gabadhaydii gul ayaan kuu rajaynayaa iyadoo farxsan ayayna isla markaa soo tagtay guriga ayayna ku soo laabatay nasiib darasa goortaas ay guriga ku soo laabanaysa waxay isdaysa arrinka waa gabagabay doontaa laakiin isla markiiba moobilkeeda ayaa la soo wacay waxaana lagu yidhi yuusra maxamed miya kadibna waxay ku tihi haa waxaana lagu yidhi waxaa laga baahan yahay si degdeg inaad isbitaalka u timaadid weliba iyadoo isbitaalkii loo tilmaamay iyadoo yaabanaya isla markii waxay tihi maxaa dhacay waxaana loo sheegay ninkeeda shi inuu galay iyadana isla markiiba tagsi ayay qabsatay isbitaalka ayayna isla markiiba sidaas u gaartay goortiisa ay sidaas isbitaal ku soo gaartay gabadhii receptionka fadhiisa ayay waxay ku tiri waxaan raadinayaa nin lagu magacaabo mascuudi halkan ma la keenay iyadana waxaa loo sheegay inuu ninkaas uu ku jiro dhankaasii qolka emergensiga waxayna ku tiri hadda xaaladiisii ka warran ma laga yaaba inuu soo fiicnaado iyadana waxaa la yidhi keeyey waa ninka in u ducaysaa waxaa laga yaaba inuu soo fiicnaadee iyadana isla markiiba way aqbashay yusro aad u murugaysanayaan isla markii mobilkeeda qabatay kadibna waxay la xiriirtay waalidiintii mascuud arrinkiina way u sheegtay hooyadii dhasha mascuud arrinkaas aad bay uga murugootay waalidiintiina waxay dhaheen diyaarad dhankaas abuuj u socotaan ay imaanaynaa saacado kadibna waan kula joognaa saacada markay ka soo wareegatana waalidiintii ayaa isbitaalkii soo gaaray kadibna dhakhtarka ayay la hadleen waxayn dheen igor ninka hadda xaaladiisa dhakhtarka ayaana wuxuu ku yidhi hadda xaaladiisu way fiican tahay dhakhtartiina waa uu ka badbaaday laakiin xaaji cabdullaahi waxaan doonayaa inaan adiga si gooni aan kula hadlo isagana wuxuu yidhi okey kadibna dhakhtarka ayuu soo raacay dhakhtarka ayaana wuxuu ku soo jeestay xaaji cabdullaahi xaaji cabdullaahi wuxuu ku yidhi wiilkaada hadda aad bay u adag tahay inuu socdo laakiin waxaa laga yaabaa bilooyin kadib inuu iska fiicnaado lugihiisana ay fiicnaadaan sababtay ugu wacan tahana waxay tahay ninkani in waxyeello weyn lugihiisa ay ka soo gaatay xaaji cabdullaahi isa goortu intaasi maqalla wuxuu yidhi inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun dhakhtarka ayaana wuxuu ku yidhi wiilka ma uusan dhiman laakiin haddii aad samaysiin waxa inii sheegay waxaa laga yaabaa bilooyin kadib inuu fiicnaado kadibna waxa uu ku yidhi waa inaad u geysay meel terabista si lugaha isaga loogu masaajeeyo xaaji cabdullaahina uu aqbalay kadibna wuxuu yidhi maarki karnaa iyagiina waa la oggolaaday gudaha inay soo galaan
goortiisa gabadha yarta xitaa waa ay la socotay gudaha ay soo gashay waxay aragtay ninkii Mascuud ahay oo xilligaas sariirta saaran oksijiinkana uu ku xiran yahay qalab badanna uu geesiisa ku wareegsan yahay kadibna waxay aamini weyse waxay arkayso Yusra ay isaga murugaysanayaan Mascuud ku tiri Mascuud oo aan ku weydiiyey sidee waxyeeladani kugu soo gaartay isaga laakiin xilligaasi ma uusan hadli karin sababtoo ah dhibaatada soo gaarta awoodiisa laakiin indhaha ayuu kala qaadayo keliya dhakhtarkii ayayna isla markiiba gabadha Yusra u timid kadibna waxay weydiisay xaaladiisa isagana waxa uu ku yidhi walaalay aad baan uga xumahay ninkan hadda wixii ka dambeeya ma socon doono laakiin haddii aad u kala tacaashiin oo meel telefiistayaal aad geysiin masaajid loo sameeyo waxaa laga yaabaa inuu fiicnaado asbuucsa markii ay ka soo wareegatay ayaa loo ogolaaday ninka inay baxsan karaan gabadha yartaana waxay bilowday ninkii meesha inay ka soo kaxayso dhan kale waalidiintii waxay go'aansadeen dib inay ugu laabtaan halkaasi magaaladii ay ka imaadeen ee Lagos iyagoo gabadha kala dardaarmeen in ninkan si fiican uga taxadarto iyadana isla markiiba way aqbashay goortiisa guriga siyaas u keentay ayay waxay hadday dhankaas iyo qolka sare ee dabaqa goortiisa qolka si u bashay ayay bilowday inay aad isaga oyso ilintuna markaas aad bay u qubanaysay kadibna waxay isweydiisay ninkan lacala hadda haddii ay ka tagto yaa daryeeli doona iyadana isdhibinayeen isla markiiba wixii yarka isaga kor ka yilaa hoos ugu soo qaaday meeshii hoose markay u keentana waxay ku tiri hadda wixii ka dambeeya meeshaasi ma joogi doonto halkan ayaa seexan doontaa maadaama hadda adiga kor aadna fuulikna waxyeelana ay ku soo gaartay isagana wuu uga mahad celiyey kadibna waxay ku tiri hadda baahi ma ku haysaa si aan cunto kugu soo kariyo isagana waxa uu ku yidhi maxaad ii soo karinaysaa iyadana waxay tiri baasta iyo hilib ayaan kuu keenayaa isagiina waa uu ka aqbalay kadibna waxay weydiisay sida waxyeelada ay ku soo gaartay ninkanna wuxuu sheegay intii waddadii socday baabuurka inuu bareega uu ka goostay oo uu suurtagali weysay inuu qabto kadib markii baabuur kale uu ku yimid sidaa darteedna uu isaga shilka ku galay iyadana waxay tiri alxamdulilah hadda waa fiican tahay intaanba haddii uu xanuunkaada kugu ekaaday isagana xilligaas wuxuu dhahayey xanuunkan xanuun igu weyn ma jiraba iyadana waxay tiri insha allah waa caafimaadaysaa ha ka cabsan intii aysan ninkaas la hadlaysa ayaa isla markii moobilkeedu soo dhacay iyadana dhankaasi moobilka ay u soo raday waxayna bilowday inay balmoolkii qabato goortiis moobilka saas u qabato wuxuu ahay ninkii Mascuud ahay wuxuuna ku yidhi walaalay muku arki karaa iyadana waxay tiri maya hadda xaalad xun ayaan ku jiraa markii aan ka soo baxo aniga ayaa ku soo qabanaya isagana kama uusan diin isla markii waa uu ka aqbal wuxuuna ku yidhi okay iyadana dib waxay ugu soo laabatay ninkii Mascuud ahay Mascuud ayaana waxa uu ku yidhi ii sheeg yaa hadda la hadlaysay iyadana waxay ku tiri iska daa waa qof aan saaxiibanahaye kadibna ninka ayay u indhagadisay isagana wuxuu yidhi maxaad igu indhagadinaysaa waxaan u malaynayaa Mascuud inaad la hadlaysay iyadana waxay tiri war iska daa qofkaan la hadlaya u qabane hadda iska siinaysa anigana jikada ayaan aadayaa kadibna cunto ayaan ku soo diyaarinayaa isagiina waa uu ka aqbalay kadibna meesha ayay uga tagtay jikadii ayayna aaday kadibna cuntadii ayay u soo diyaarisay goortaysa cuntadii u keentay meesha ayay ku wada cunteeyeen maalinkaasna sidaas ayuu ku dhammaaday subaxiigii markii la gaarana gabadha Yusra sida caadada markay soo toostay salaadeedina iska bixisay waxay bilowday ninkii quraac inay u diyaariso laakiin ka horse quraacdii intaysan diyaarin waxay aaday dhankaasi supermarketka si alaabo yar ay ugu baahnayd ay uga soo adeegato goortaysa alaabtii iyo weliba cuntadii ay meesha uga baahneed wixii ay meesha ka soo aruurtay waxay soo aaday dhankaasi counterka kadibna lacagteeda bixisay weliba iyadoo isticmaalaysa kaarkii Mascuuda goortaysa wixii dhan ay dhammaysay ayay bannaan ku soo baxday si ay baabuurka u kaxaysato laakiin halkan ayay waxay ku arkay ninkii Mascuud ahay oo gabar kale la taagan kadibna way u timid waxayna ku tiri ayay Mascuud ii waran Mascuud oo xilligaas yaaban ayaa gabadha yarta ee Jamiila hadashay waxayna ku tiri walaalay barasho wanaagsan magaciigu waa Jamiilo ninkanna waa ninkeyga Mascuud Israel goortay intaasi maqashay indhaha ayaa ka soo haray Jamiilo hadalkiisii wata ayaana tiri walaalay saacad fiican ayaaba xiran tahay kadibna Yusra ayaa ninka waxay ku tiri ninkaaga ayaa ku iibinaya maadaama nin taajir uu yahay kadibna Jamiila ayaa tiri war ninkan waa nin faqiira weligeena mid labada ma aanan arkin gabadha yarta oo xilligaasi yaaban Yusra ayaa waxay tiri okay saaxiibayaaloon barasho wanaagsan mar kale ayaan isqaban doonaa iyadana isla markiiba dhankaasi baabuurka ay u soo carartay gudahaasa markay soo gasho wayaamin uu saxi maanta aragtay waxayna tiri oo kaale Mascuud muxuu kugu sheegi waayey inuu isaga hore u guursaday oo haddama wuxuu doonayey inuu ninkeyga furo iyadoo aad u caraysanayeen isla markii baabuurkii soo dhaqaajisay oo dhankaasi xaafaddii ayay soo aaday inkastoo markaas aad u xanaaqsaneed goortiisa ay gurigiisa u timid Mascuud ayaa waxuu ku yidhi soo dhowow iyadana waxay tiri aad baad u mahadsan tahay alaabtii ay wadda ayana bilowday dhankaasi jikada inay geyso goortiisa jikadii waxay soo saartay ay dib meesha ugu soo laabatay Mascuud ayaana waxa uu ku yidhi xaaladaadu macan tahay maxaa kugu dhacay wejigaada wuu bedelmee wax khaldan ayaad bannaanka la soo kulantay iyadana maya waxay tiri wax walba ay fiican yihiin laakiinse xilligaasi wax walba waxaa laga akhrisan karay wejiga Yusra Mascuud ayaana waxa uu yidhi ma waxaa jira arrin aniga aad doonay inay ii sheegto mise Saara mise Cadnaan ayaa wax kuu geystay ii sheeg
sideena wax u jiraan aniga Yusra waan ku dareemi karaa intaas ayaana guriga kula nooleen ii sheeg Mascuud ma wax khaldan kugu soo sameeyey iyadiina waxay bilowday ninkii wax walba inuu sheegtay waxayna ku tiri war ninkan Cadnaan hore uma soo sheegin inuu isaga naag qabo tan kale si dheerna waaba ninkii ugu taageeray inaan adiga iska furo ninkii Mascuud aytis markuu maqlo uu aamin waayay markaas fiir furitaan iyadana waxay tiri haa wuxuuna ku yidhi maysaa warqadii furitaanka iyadana waxay tiri haa oo gurigaayo haddii yaalin kadib ayuu waxa uu ku yidhi waxay keenaan fiiriye iyadana isla markiiba way oroday waxayna aaday dhankaasi qolkeeda warqadii ayayna isla markiiba dhakab soo tiri ninka ayaynu keentay Mascuud ayaana isla markiiba wuxuu bilaabay warqadihii inuu fiiriyo ugu dambeyntiina ninkii Mascuud warqadihii ayuu xaqiiqsaday kadibna waxa ku yidhi oo kaalay waxaan ma fikirkii ninkii Cadnaan miya isaga ma si aan kugu dhiirigeliyey Yusra ayaana ninkii ku tiri maya fikirkan aniga ayaa iska lahay hore ayaana u go'aansaday xitaa saaxiibadeena arrinkan waa kala tashtay sababtoo waxaan u dulqaadan waayay nolosha noocaan inaan ku noolaado adigana si xun ayaa ila dhaqantay haddii mar kale aan dib kugu xasuusiyo sidii qaab darreed aad ila dhaqantay markii ugu horreysay aan gurigaan imaaday anigoo adiga cunto kuu diyaarinaya ayaa waxyeello iga soo gaartay oo waxaan ku gubtay biyo way igu soo daatay markii adigaan kugu qayliyana adiga waxaa bilowda alaabtiina ka fikirtay meeshaan iga fikir leed mar kalena waxaa dhinac iigu tuurtay sariirta dhibaato ayaan halkaas iga soo gaartay tan kale xanuunka badnaydna waxay tahay inaad mar kale gurigii aad igu keentay naa kale taasoo adiga aad doonaysa inaad la seexato sidaa darteed noloshaas ayaan u dulqaadan waayey waxaana go'aansay inaan meeshaan ka tago isagana wuxuu yidhi horta aad baan uga xumahay sidii qaabta darreed aan kuula dhaqmay oon ku baryayay sidkay cafi waxaan qaysanahay inaan adiga qalad weyn aan kaa galay si qaldan aan kuula dhaqmay marka waan ku baryayay sidkay cafi tan kale aan kuugu daro haddii xitaa haddaa u baahan tahay furiin hadda ayaan warqadaha kuu saxiixayaa waa haddii adiga farxad ku helaysid xilligaasna hoos ayuu u hadlayey kadibna gabadha yarta waxay bilowday inay arrinkii ka fikirto waxayna is tiri lacala ninkan haddaa ka tagtid yaa daryeeli doona tan kale xitaa haddii haddaan iska cafiyo oo laga yaabo mustaqbalka inuu isla sidii u noqdo kadibna waxa uu ku yidhi mar kale isagoo weydiinaya ma u baahan tahay warqadahaada inaan kuu saxiixo Yusra ayaana ninkii ku tiri horta hadda adigu waa xanuunsan tahay marka hore soo caafimaad kadib ayaa arrinkani ka wada hadli doonaa iyadana maalmihii xiga ninkii si fiican ayay u daryeeshay maalmuhuna sidaas ayay ku socdeen iyagoo isbuucyada isugu dhibayey isbuucyadana bilahay isku dhibayeen 2 bilood markay ka soo wareegtay arrinkii ninkani ayay subaxii dambe ninkii waxay u soo qaaday dhanka isbitaalka si isaga baaritaan loogu sameeyo goortii dhakhtarkii la keena baaritaan lagu sameeyey ugu dambeyntii waxaa la ogaaday ninkan inuu fiican yahay wixii hadda ka dambeeyana lugihiisa uu ku soconayo dhakhtarka ayaana Mascuud weydiiyey inuu hadda xanuun dareemayo Mascuud ayaana u sheegay in hadda ay fiican tahay xaaladiisa kadibna waxaa la tijaabiyey inuu soco karo Mascuudna ugu dambeyntii wuxuu xaqiiqsaday inuu soco karo kadibna dhakhtarka ayuu u mahadceliyey sidaasoo kale kaniiniyar ayuu sii siiyey uuna sheegay inuu sii isticmaalo kadibna Yusra ayaa waxay tiri dhakhtar aad baan kugu mahadcelinayaa sida wanaagsan aad ninkii igu daryeeshay isagana isla markiiba uu soo baxay kadibna waxay soo aadeen dhankaasi baabuurka si ay guriga ugu laabtaan isaga dhanka dambe ayuu fadhiistay halka gabadha yarta Yusrana iyada bilowday baabuurka inay ka hayso Mascuud ayaa mar kale waxa uu ku yidhi Yusra waan ogahay qalad weyn ayaan kaa galay marka waan ku baryayay si kay cafi tan kalani waxaan doonayaa inaan kula sii noolaado mana doonaya inaad iga fogaatid waxaana kuu ballan qaadayaa inaan ku sii doono nololtii ugu wanaagsaneed marka waan ku baryahay iga tegin iyadana waxay tiri aniga ma ku sheegi karaa hadda xaqiiqda sababtoo aniga qareenkii hore ayaan ula hadlay si kastaba ahaatee arrinkan waa ka fikerayaa go'aankay ugu dambeeyana aniga ayaa jawaabta ku sii doonaa kadibna waxa uu ku yidhi okey si kastaba ahaatee adiga ayaan jawaabtaada sugayaa kan kalese Yusra maskaxdeeda waxaa ka guxayay lacala ninkan haddii hadda iska cafisay la sii noolaato ama sidii hore uu ku laabtaa si kastaba ahaatee baabuurka ay soo xawilayso ugu dambeyntiina guriga ayay soo gaareen Mascuud ayaana wuxuu kula kaftamay gabar 19 jir oo saan baabuur xawaareynaysa weligii ma arkin iyadana waxay tiri 2 maalin leeway ka dhamo in 20 gaaro marka degdegan ee guriga gudaha u soo gal Mascuudna uu ka aqbalay kadibna guriga ayay soo galeen gabadhii si cadeena howlihii guriga ayay kala qabatay meesha ayay ku cunteeyeen ilaa habeen ayaana la gaaray iyadana go'aan waxay u gaartay ninkii qolkiisana aadasi u soo macsalaamaysay habeen wanaagsan ay tiraahdo kadibna waxa uu ku yidhi waran haddii caawa intaa iska saxatid iyadana waxay tiri maya subaxii ayaan is arki doonaa isagana markay sidaas uga tagtay waxa uu bilaabay inuu habeenkeedii u fikiro sababtoo waxay u sheegtay in 2 maalin ka dhiman tahay inay 20 sano gaarto xilligaasna wuxuu isweydiinayay hadiyada ugu fiican oo iyada sii karo ninkii Mascuud ahna meesha ayuu ku hurday isagoo xilligaas qoraya wax walba u baahan yahay subaxiisa markuu hurdada ku soo toosay qoraalka ayuu meeshii ka sii waday laakiin intuu meeshii wax ku sii qorayay ayaa albaabka la soo garaacay isla markiina warqadii uu qoray ayuu bilaabay
inuu barkinta hoosteeda u geliyo goortii sidaas u geliyey yusra ayaa gurigii soo gashay kadibna waxay tidhi subax wanaagsan iyo war hameenkaadise u ahay weliba iyadoo dhoolla caddaynaysa mascuud ayaana waxa uu ku yidhi waa u wacnay waxayna tidhi quraacdaadii ayaan kuu keenay ee kaale cun isagana isla markiiba dhankaas yuu aaday uu soocaysay salaadda ayuuna iska soo bixiyey kadibna waxa uu yimid meeshii lagu cuntaynayey kadibna wuxuu bilaabay cuntadii inuu cuno laakiinse intuusa cuninaya wuxuu ku yidhahday cunto ma cuntay iyadana waxay tihi hadhow ayaan cunayaa laakiin waa uu ka diiday kadibna wuxuu yidhi waa inaad hadda cuntaa iyadiina waa ay ka aqbashay meeshii ayayna rumaatidii yar ku jileen cuntadiina ay ku cuneen kadibna waxa uu ku yidhi beri waa dhalashadaada ee waxaan ku weydiinayaa ii sheeg ma waxaad u baahantay yaa jirta iyadana waxay tihi jokolaat ayaa iga badan intaas la iikeen isagana waxa uu ku yidhi okey dhib male wax walba aniga ayaa kuu dalbayaa subaxiga markii la gaarana gabadhii ayuu qolkeeda ugu soo galay ilaa alasaynimo ayuu ninkii barnaamij sii diyaariyey kadibna qolkeeda iyadoo hurdiisa ayuu u soo galay waxuuna ku yidhi dhalasho wacan yusra way aamini weysay iyadana hurdadii ka soo toostay kadibna way soo caystay waxdana way soo dhammaysay kadibna labadu waxay bilaabeen meeshii inay ku dabaaldegaan goortidii u keenana inay meeshii ay ku cunaan goortiisa dabaaldeggaas u dhammaaday ayaa ninkii mascuuda waxa uu ku soo jeestay yusra wuxuuna ku yidhi ka waran haddii bannaanka aadno wakhti qurux badanna halkaasi ku soo qaadanno tan kale aan kuugu dare sabrays ayaan ku hayaa iyadiina waxay tidhi saaxiibu sabrays kamaba jeceliyo ka warne markaasuu yidhi kan waa jeclaa doontaa waxaana sidaasoo kale ku jira icecream iyo weliba yogad iyadana markii intaasi maqasho aad bay u farxday waxayna tiri oke way soo diyaarinayaa qolka ayayna isla markii gashay waxayna bilowday inay soo diyaariso weliba dhar aad u qurux badan ay soo xidhato goortii ay soo dhammaysay ninka mascuuda hoos ayuu ku sugayey labadoodana waa ay baxeen kadibna magaaladii ayay aadeen wuxuuna u kaxeeyey meel kale uu gabadha hore ugu sii diyaariyey weliba wuxuu geeyey beer aad u qurux badan goortiisa beerta sidaas loo geeyey gabadhii aad bay ugu farxday waxayna tidhi meeshaan aad baan uga helay mascuud ayaana yidhi yaa isgaaray kadibna meel kale oo keeg ugu diyaariyey ayuu geeyey keegga ayayna bilaabeen meeshii mar kale inay ku dabaaldegaan xilligaas yusra farxaddeeda lama qiyaasi karin ninkanna wax walba wuxuu samaynayey siduu gabadhaana uu raalligeliyo ugu dambaysay goortii ay dhammeeyeen keeg iyo weliba meeshii wixii ay ku cunayeen ayaa ninka mascuuda ay faraantii soo bixiyey kadibna waxa uu ku yidhi yusra aad baan uga xumahay wixii aan kugu sameeyey xaqiiqduna waxay tahay inaan hadda ku jeclahay yusra xilligaasi farxaddeeda la qiyaasi karin ayaa tiri sidaasoo kale aniga waa ku jeclahay sidaasoo kale meeshii waxaa imaaday mascuud iyo waalidiintiisa hooday gabadhii aragtay way aamini weysay meeshiina waxaa ka dhacay dabaaldeg aad u weyn saxaabay sheekadeennana halkaas ayay ku dhammaatay mascuud iyo yusrna mar kale ayay midoobeen waxaana u rajaynaynaa nolol qurux badan oo walaalkiina barqadana leh cashirka sheekadana ka baratay kommentiga nala wadaag oo ha naga hilmaamin muuqaalkeena like ardid channelka haddaad ku cusubtaana subscribe-ta naga hilmaamin sidaasoo kalena qisooyinka noocan haddaad ka heshay kommentiga goodbye wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu